السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله هبرير إيه ورسالته. الحمد لله وريا رسوله والسلام لنا هي هو برنامج والله أنا أفرح سنة مركز دليل أرك أنا أفرحة مفهمت. هادي أرت الله إذن حفظي لما أنا وحالي أمد الصوماليين أو جوري عندها يا marka waxa waay dhalinyarada loo baahan yahay dalkan waa dayacana hadaan hooyooyin nahay waxaan sugayna waa xoogiina waxaan sugayna waa maskaxdiina dalna dhalinyara dhisto taariikhda waa la socotiin dalka Soomaaliya taariikhda ugu xooga badan dhalinyara lahayd Israa'iil aad markiina dalka u kacdaan waa dayacanahay hooyooyin hadaan 30 sano iska dayacanahay والله استاكتينا ربع جماعة اسقطتان دلك نود استان إلهي قيرات وإذن سيئة هل إذن صار شقتك آمين 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 أنت قفل بكران كي ساعة وأنت ذلك أنا من أغنى هو يمكن بعتذر اسمرين ما قهر كان يو شقة ولا حتى هدي أدي بنعس مرنا بقف كاتا لو قولين يحب الباجر يا سبحانه وتعالى وحكيت إنه بتوضح كأنه وناديه أنا من قلوب الإسلام وعن كويتنا أن أبريرة مركا أركتو أن هو يدل كذا وديسن أو عن كل الرجال وديسي أو جار قروح بدن وضطو أو المال عافماد هاي ستو أو وحكس إفرتام هاي ستو ما حد أنت والله والله وحدي عن قف مدرني مركز عمل وحو اسمها حتى نلاشك أهان وقومة الجلمية إن النظام قاع لا تقول إن لا سمس تقول إن نلاش وقرا حسنا يسقف لا مركز بدالك أقول وجود دريا مركز إن بدل لا أنا وحسن وصلنا marka aragto wiil asaga oo adoo kale oo dal u dhisan yahay oo nidaam iyo kala dambeyn haysto oo baasaboorkiisa dalka wato oo eelboorka inta saf ku soo galo waxaan ku leeyahay si sharaf lagu gudbaayo oo adigoo qaxooti oo boorso jiidaayo baasaboor dadawto handhac leh lagu qabto dawlad ku dooda ay lahayn kuwii baasaboorradooda wadamada ay haysatay markii wacdana ay ku dhahaan waxaas waxba kama qaban karnaa adiga iyo macna isdabir هذا عرور وذنين محد ريميلات والله هرتو هوي وارنتا وهذا كيف كنت والله أنا قادر أقول معها الرواتب نجهز أي واحد من السفارة في الصومالية يدنا قيب بكتها والله أنا وحن كنا على ودك يا هرتي أنت أنا كسوق حين الله ونحرسته دولة أب معمسيات برا ذلك مركو كبحاي نلنا ونوجو بين ونو سعودين مفهمت هذه كدب دغالدي معي اسكو عسلaaday markuu dalka ka baxay maleeshiyaadkii jabhadii iswatay dhaxdooda isdagaalay waxaan ugu soo yaaceen dad wax bilaqaysanay dad wax dilay dad dadka guriyaha ka baxsanay dhibaata la soo maray waa la kala firxaday wixii ku dhintay Allah u naxariisto Kenya imaadaan oo qaxay Kenya markaa imaadayna meel waxaan ka bilaabay oo qof kasta kale way soo martay oo Kenya ku soo qaxday meel rafaad badan aan nolosha ka soo bilaabay jidkii inta soo socona baydhaba inta u dhaxaysayna maxay ahayd iyo maxay ahayd u dhaxaysayna maxay ahayd Kenya gaajada meydka dadka gaajada u dhamaaday dadka aan soo kala harnayn wax la soo koobi kara maahan dhibaatooyin badan anaga soo marno og hadina waxaan u baahanahay inaan dalkeena dhisano oo dadkan qabiilka muufada ee ka gashay ninka dhalinyaro ninka qabiil meel inta la soo fadhiisto ku dooday waxaana ahay horta waa qof xanuunsan waa qof aan alla aqoonin waa qof aan biyo xalaal aaba Soomaaliyeed aan ka dhalanin waay horta dadkii in la kala ogaado waay qofka biyaha xalaasha oo Soomaali original hooyo Soomaali inay burbursanaato hooyo Soomaali inay silicsanaato in aan rafaad 30 sano ku jirno ma yeelay waxana burburinaa waxan biyo xalaal laga dhalin horta in la ogaado waay dadka marka baaqan waxaan u diraa wadaniyiinta xalaasha oo jecel hooyada Soomaaliyeed inay sida naagta imaaraadka u qurxoon badan tahay oo aniga 8 ku cuntada siinay tan Sacuudiyaanka oo quruxda badan loo gabadheeda hadda xal gabar aan la hadlaa baadiya Sacuudiga geeli ay raacaan xoolo dhaqato ayay u shaqeysaa bal dad xoolo dhaqatay ay u shaqeysaa
meel xataa kaar aan ka wacdo ma haystay dhaysaan dadkayga ka waco xoolo dhaqatadii heer la gaarsiin in ay gabdhaheen u shaqeeyaan 80 kana anaga cunto siinayna marka dalkan waxa burburinaya ma aha Soomaali biyo xalaal aaba Soomaali xalaal oo dhalay nin dawladda u jeed inta hooyo wax qabatay oo quruxda arti sameynayso caalamkii cadaanka ee TV-da ka sheegayaan aan inta soo fadhiistay status maxay qabteen maxay yeeleen ninka dhahaaya biyo xalaal ee aaba Soomaali biyihiisa oo guto xalaal ee hooyo Soomaali xalaal ee ma dhalin wallahi iyo billahi tallahi ana taas saddex magac ilaahay maray waay markaan arka dal dhisan waa ooyaa markaan arka baasaboor ajaanib aan wata elboor taagana waa gariira ma laga reeba maxaa la kulmi doontaa ma ogid waxdadoo amaana wadataa dhibaatada nagu haysto qurbaha ilaaha og waxaan jecelnahay dalkeena ciisi karaama sharaf ugu noolaan qof waxa arkay ceer qaato oo guri nabada la siiyay oo hooyo biyo dhex fadhida hooyo rafaadsan aan danqinaynin oo farmaajo cayna ama khayra cayna micnaha dadkaas biyo xalaal kama dhalanin waxa biyo xalaal ka dhashay ninka dalka iyo dadka dhahay oo dhisay aan qabiil shaqo ku leen hore u soconay kaas waa kan aabaha biyo xalaasha oo xalaasha boqolkiiba boqol oo dhalay dadka hala kala saaro xaaraantii badatay aan biyo xalaal ka dhalanin oo Soomaalinimadii iyo afki kugula soo koray horumarkaagana aan rabin waxaan horumarkaaga rabin xalaal ma aha ana runta sheegay oo shisheey u orday oo dadka majaha ku dhagan oo wax dhisaa wax qurxinay adigaas hooyo roog cagaarana ii dhigaysa haddaan ku dhaa ka waran maxaa ii dhigi meeshaan oo tiitiin kolle laga yaaba tiitiinki inaan lacagta faansan wiil yarata tiitiina meeshaan lagu goglaa waa istatus qoorqooro quruxda aragtay oo waxaan ku nicmada aragtay dal ka soo saaray ee kumentiyada akhri bal wuxuu leeyahay beenta furuud oo la shiiday oo la soo laga keenay meelahaas gacanta lagu haysta igu sawir waxa soo dhan waa wax xaaraan ah xalaal lagu dhalin way dalkaaga cadow ugu tahay way ilmaha 30 sano agoona noo buuxi curyaana noo buuxi doolar noo buuxi adduunka aan ku hoos marno webiya haysta bala haysta badeed niman asaagiina guranay oo waxaan ku leeyahay bilyan wadamadooda ku shubanay warka ma haysid saarka khayr iyo farmaajo lagu dhagan yahay waxa lagu dhagan yahay kii wax qabta waxa soo dhan waxa dawladda ku dhagan oo dhan biyo xalaal oo sawa xalaal oo aaba Soomaalida wallahi iyo billahi talaa inaan laga dhalin ama nin ha aadan ama naaga ha aadan nabad in nolol aan rabaa nabar in xadina la igu bedelay waxaas nabar in xadinta qoray waa waxaan xalaal lagu dhalno sina lagu dhalay sina wallahi billahi talaa sina lagu dhalay way xafiisa tagaysa waxa ka doonane takhtar ana hadda kor Sweden weligay ma ka fikirno inaan qof madow aan takhtar u noqdo daawo u qoro maxaa inta ku keenay u dhaasoo la turjumaa maxaa ku keenay Sweden 12 sano maxaa ku keenay weligay wuxuu yiri ani wax barashada aqoonteeda qof madow ku soo hor fadhiisanay daawo u qoro weligay wuxuu yiri mitinkeena anka u maalin wallahi waa qosl waxa dhaw u shacbi waa runtaayaan laakiin daruufa ay keentaan dalkayga dagaal iyo dhibaato ka dhacda ay keentay dhibaatada sadaadi tabaneysna aada ugu xumaa waa ku saxsan yahay uqdad ugu ma qaaday wallahi waa saxsantaa dhamaanta xigtana magaciisa fiyooro ku qorna u dhiibay waa runtiis weligay ma ku fikirno habeen iyo maal waqtigayga aan geliy iyo aqoonteeda wax barashay in aan qof madow daawo u qoro dalkayga wax u bartay dadkayga wuxuu yiri aan wax u qoraa waa ugu adagtay qof madow awal mar nolosheeda aan arkay adiga tahay magaalo tuulaha markaas aan deganaa wallahi waa ku farxay inaana ka nixina ilaahay ama qaato ugu dhigana waa dalaalahan dareen ku jooga la dhahay warun marka dadka ayagoo basay qurbihi hooyada kaliya ilmaheesta maanta tii Allah day u maanta gaala ilmi qaadanaysa walwal iyo walbahala lagu jiraa nin hor taagan oo waxaan ku leeyahay shalay asiga dalka burburiyay oo shalay macdanta iyo waxaan ku leeyahay warshadii dalka aan naqaan la guray oo imaaraadka laga gatay oo warsha ilaahan ku dhaartay xam muqdisho ilaa dagaalka xataa waa joogo oo maxayada Mareykanka ilaa 4 bilood arxan darrada iyo shacabka la dhibaatada meesha ka socotay wallahi waxaas dalkan ma lehe marmaraan dambaad waxaan dhakaalay ama Ethiopia ciilka ay qabtay nagu soo duush waxaan wax ka daranay u maleeyma dadka inay Soomaali yihiin digsi la orday oo hooyo Soomaali guriga dhex fadhida dad guriyeenta laga soo baxsaday baas la marinaay joodar la orday daaqad la fujinaay ganjeel oo dadka inta loo keenay power GPL labada afar gees ganjeelka inta la geli la fujinaay macnaha shoogan ka soo qaad ilaa hadda waxa qalbiga ka bixin waa haddina maanta waa la dhisaaya waa aragti qurxisi adduunka socoto ma hora u socona ma sagalaana maanta u jeedayna gadaal uma socokarna idinka dhalinyaro ana hooyo Soomaaliyeed ahay mi faantay mustaqbal ay u baahan yihiin ilmahan dhalay ani waqtigay markuu dagaalada dhacay dugsi dhaxan dhiganay xamar jajab xaafad la dhaho ilaa anta naad oo waligeed xamar arkin oo luuqadeeda aad taqaanid waxay ku leedahay cashuurta kaga dhigtay
ورعن صورة أنا هو أبي بوليس جوها دلك الصومالي ماله كشقين الملك هاي هذا بوساس يجوكتا اسبرتال مرتيني انت اساسا كشقين يسي ما شاغنو حقا الاولى ودن كست عنصوره بحيا دلك انجل عنصوره على بحيا قف كست او شقي ودنك انجليز كان عاد جوج عنصوره بحيا واكو فرحسنا قشن كان نلقى قاده بوليس محيد على بحيا عنصورتيس بيها على بحيا واحد كستو على بحيا ما انت سجل دغتنا والوصل بجباره شرعي ودمنا سيسايه waa ku dhaqmeena keenina canshuur ale waxaas waa waxaan xalaal ahayn aan xalaal ugu dhalin war dalka annay weerarkeen habeen imaan shaqo u taagna oo hooyada subaxii galab u taagnay oon waligay afkayga ma soo maro afka inta la mari maxaa la qabto waa ku farxaa maxaa la dhisay canshuurta yaa la cunaa canshuurta facebookida lagu bixinaa waa kaga dhigtay waa dada xalaal lagu dhalin adi haddii la dhaha ka waran ceeraa lagu siiyaa guriyaa lagu siiyaa canshuurta aa cunaysa swedish askale norway askale denmark askale jarmalka askale maraykana askale canshuurtiisa cunaysa ingiriiska canshuurtiisa cunaysa haddii lagu dhaha ka waran ayagoo candho weyn oon dhaqaaqi karin oo si wada yaalan yaabaysid ee qabiil la taagan yihin maxay yahay magaalada barmaan taagana baabuurtay wataan soomaaliya ku dhiibayn ceeray qaataan haye haddii la dhaha ka waran ninka british ko habeen walba shaqeynaya gabadha british ceerteeda ma cuni kartiin canshuurtooda xaq ilaahay miyaa marka dadka micnaa dad kama fiyooyin mas muwaaliin ana ma aqaani marka maama dalkan idinkoo idin sugaa dhalinyaradii aad tihiin odayaasha inta wanaagsan mee inta xun oo qabiilka u taagan raafka mariya dowladdan waxay qabatay ani iska daa weligay tv 7 sano waddanka ingiriiska deganaa bbc daas weligay ma arkin soomaaliya laga sheegay qaraxyo lagu baaba'ay hilibkeenu gubtay wax kasta ka socday ma arko haddana برنامج تلياني أو هذين مركز نيوز أنجل سومالي وحلا دلا تلياني حتى ويا بس دلا سوماليا تروات وومني وبيلا كوسي قريبة وفرحتك يا تلياني ويا برنامج حتى لو سوقاتا ما حاودي لي إن وناج ولا كسمينا إن حسده وإلهي كبق أدوك إن وعدا من دكان ورجيل وحاسس على الصومالي أنا أقول دين أنا أقول أنا أقول إنك عداك كلي أقان عداك صومالي لو بيرايا فدرال وحنا لو دحay waxa way federaal waxaan ku nahayba ilmahan hooyooyinka caalamka dhan ku haystaan sagaal inta luuqad walba kuntan luuqad ku hadlay federaal la dhahaa taas waa tan federaal ahaan Soomaali loo sameeyay hadda ogtiin hadii kale barijiil waxa imaanay Soomaalina aqoonin diinna aqoonin adigana ku aqoonin oo dalkaas wixii laga rabo fulinay marka maanta idinka dhalinyarada dalka inaad system fiican u sameeysaa wixii imaanayna systemkiina ay idin kula noolaada wax ka wanaagsan ma jirto صدق سنة ليس جيدا يا واحد ليس كجيدا ما نقان عيل مال بيم مال وحنا قاعد وعدات إسكال مال عاصمات مال وبيجي على دحفديا هذا جبريل قرومات نحس حقوق كمان يصير صدق سنة كل حتاج أنت خيرات كاجية دائما كايو قرنا يصير إمارات قرح كوسو قادا إلالوش نايس وين راح يصير عن بابور تاعي وتاويا قبلين يا قرية قدامه وهدي قولي حركة هذه مشغولة هذا دقاي وين حنوجي لايهين قبل الصومال قروح بدنا والله ضيعي ميرل بانكو ضيعنا الجانب اسكداي عدانا او المددل ما انت ادنا هاد لك احتمال قنيسه لنا waxaan kulay ilma cadaan sidana anigu kula hadlay ilmahay waa masaari dalkay Soomaaliya raba inaan nabad iyo cadaalad ay ugu noolaadaan way ana qorsaday masaari waxba kama yaqaanin waa burbursana waxaan rabnaa dalkeen inaan ciisi karaama dad Soomaali isficilay la sheegaysa aniga ilmahan masaarida raba inaan Soomaaliya aan keeno oo wiil gabdheegas إلهي إجازة أول سومالي كدر صدم أو إلما سومالي إبسان كفكريايا أو إلمان أيه عن لا سوماليين إلهو مسارها يجينا نتاعنا حبشية إدهان إلمان إدوبة حبشوا إلمان نارت بس حبشوا طبعا مرة أسكت قالنا حبشة إن سومالي بلا حتى إتكو تقان ماله قبيل أنتو كقرما قراني بلع إجرع أنت يا يقانا قراني بلع إجرع ورحشوضة ورخلينك بوق قاطة ورمسكح لي عقلي هالشقيو صدق سنة يا دتكين بيئي قاعد نحفني أيوة وبيئيو الشذالي قيراد له ناك تعرف بلا سديتك سنة أوهاي أنا هذا أي سينا ينحمطو الله ونحرس عبد محمد سيد برا أو ديجري ضد مسلمين فترة دي وحلا سيو مراكيت اللي هو بحنا ما أنت قرحيي وعن كلها على كوسو أذيعنا يا كوفة دي صلاة المهاجر الدرك أنت كوضع بحنا دبلها وقلنا لهم هل ما أنت دون مخلص وقرح كدعة هل عنو جوجا ماله نبض دتك يا دبيس هرمك يا دبيس دلك دلك انت الحراس مع بط مع وحول مع قبضه مع فطلان مال بلقي هدنا ركدي الى نسي ان دقنا سلك دولك دغنا والله بالله تعالى هو عاود حق فكرتي الى دائما الماس قال قادنا سو كورسنيس ولول قربها امد كنا مو ملين كرتي وردلكنا شرف كلنا
mana qof kasta wuxuu haysta hanti waa la muuraan ay ku haddaad runta sheegaysiin safan ku jiro intaasoo Soomaaliyeed masaraan taagnaa airportka saasay u gariirayaan ma og wixii la dhahay dadka ma qabanayaan war baasaboor Mareykan ma haysataa ha adigana Ingiriis ha aniga Swedish adigana maxay ahayd Norway kulliga ma soo waraysan waa la gariira qof qalbigiisa qaar wuxuu ku leeyahay wallahi ani ilmihiin ka soo tagay hadda ilmihi wadi lahaa dawladda ilmihi awalba fiirsan ilmaha lagu qaadi lahaa haye kaliyaana waa baqay haddii la rabo waa laga reebi karaa inta laga jijeexa meel laga saara kalsooni daradaas airportada ku taagantiina way dalkiin hooy u dhislaadin marka wallahi dhikara ku dhici rabaan kula airportada markay joogaan u gariirayaan waana run inuu ninka ka qaado ku dhiiri kara this false way meel kaaga rida ayaga way isdageystaan gaalada hadda ani baasaboorka Swedish-ka hadaan hayo airport lagu qabtay waa laga kansali karaa way isdageystaan gabar walaashay masar lagu qabtay ayadoo Canada ka imaad habriirow wallahi $10,000 ayaa lagu soo daayay $10,000 lagu soo daayay ninkeeda wali jooga Canada oo 8 cunug ay Canada ku dhashay $10,000 saa u tuugtamayna waxa la yiri daawo ka soo qaadooday xanuunsan adeer oo ku xanuunsan masar cid daris ku soo dhiibeen oo takhtar soo qor oo register wixii dhan ku dhagayin no waxaan warqad waxa way daraagis af xeer nala gala inta nala gala maxkamada saaran waa xukumeena waa umul ilmi banaanka inta loo bixiyo ayada xabsiga lagu haya wallahi billahi talla eedada ya dhashay hadaan been sheegay ilaahay jirka cudur ha iga geli $10,000 ay dawladda masar naga qaadatay aa lagu soo daayay airportka gudaha taa muu gudbaysaa liir way noqonay Canada loo celiyay marka adduunka meel kasta waa ku dhibanahay hantiye waa macaan waxa leedahay lagu faanay ani maalin kasta saasa u hadlaa dadka waxaan idin sheegayaa oo Soomaalinimada diidan dadka qarannimada diidan dadka madaxda sarafta ah dadka soo maray anoo Afrikada geeska Afrika kuraasta maanta ay Afrikaan ku faanayo oo keen Allah naxariistaa maxay sadbar dada caynay waxa soo dhawa wax aan xalaal lagu dhalin biyo xalaal ah Soomaaliyeed ma dhalin waa la soo korsaday waa in la kala bartaa hooyo aad u ma dalkiisa u xanuunsanaya waa in dalka u xanuunsan qofkan dalku u xanuunsan waa xaaraan ibn xaaraan dhalay waay ma aan biyo xalaal ah hala kala barto hadda orama arkay kuwa la leeyahay orama waa dhayaan inay heshiiyaan ma ahayn in Soomaaliya heshiisa maaha waa dantooda qofku wuxuu rabo xiro u yahay hadhaho fikirkiisa ka hadlaya wuxuu laakiin dadka waxaan la yaabanahay oo niman waaweyn oo dalka xataa soo maray la leeyahay oo haddana indhaha istiraay oo dadkii soo jeeda maalacad xaqiraay war adiga hadda xaarka dhaqi weysid gabar dhaqdaa imaade adiga hadda qashinka qaadi weysid wiil qaadaa imaade daartaan jijibinaan burburina hadda adiga dhisi weysid rag dhisaa imaade si walaalkaa libinta laakiin dadkan xalaal maaha ilmahoodina waa raaxaysanaya ilmihii Soomaaliyana hoogay ku jiraan jumciyadda quruma ka dhaxaysan hadday wax idin dhisayso webiga ciyaalka dhex fadhiyo oo yaxaaska ag fadhiyo darbiya waxay ugu sameynayaan sida masar webigiisa aan soo arkay aa loo dhisi lahaa cid wax idin dhisaysa male kii hal jawaan oo dhaco raashin jumciyadda qurumaha idin dhexays keenana dhagaxaan iyo ciidoo idinka raranaya ama ilmoo idinka guranaya wadadsay waa wax la ogyahay saacadooda waa kuwan dukaamada dhex yaalaan ayagoo tuugsi UN ku qoranta dharka waa kana ha intoo yaala box waa u gurnaa dharka oo ilmaha ku yaryaraadaan dharka markaas la iska bedelaay meesha loogu shubaa waa la dhaqaa Afrika loo qaadaa waxaas la idinsiyaa sidaala leediin khayraada leediin qalinkii buuginta qadaan gacmaha isqabsada dhalinyarada aan baaq u diraaya ciidankan waxaan leeyahay khayr Allah si habeen waa maalin furunta taagan oo waxaan ku leeyahay balaayada afka duubana ayaga sameysteen wax al-shabaab dhahay wax qarqisan dhahay ayaga waa nimanka nabadda diidan ayaa waxaan ka dambeey afduubkan ayaga wato meel walba qarxi dhahay ani wiil waxaan arkay maalin aan isku aragnay $20 اللي بلان قال باورنا بامبو حيرو مال شعب او يال مقدشو $20 waxaan gacantayga saar waa ii diido wiil kadib aan u diidina bamku ku xiro maxaa ka helaysa gaaja ay haysay marka gaajada dadka looga faa'iideystay dal barwaaqo dadkiisa gaajan Soomaaliya waa daalay hooyo inaan hadib hana loo soo aruuri tacbaan aan nahay qeyrna Allah ku siiyo hooyo wax badan waa hadlay wallahi dareenkayga lama soo koobi karo ayninkan qeyr badan Allah idin siiyo dhalinyarada dalka u kaca oo hooyooyinka raaxaysan waa rafaadnay aynu ku faano oo murqaa noo soo bixiyo aynu ku faano naagta carbeed waa raaxaysane way aan u rafaadsanay adduunka Afrikana ugu ilbaxsana maanta ana ugu liita akhla shaqeynaa ma garama u baahana hooyo Soomaalida wanaagsan garab ugu baahana dhalinyarada ugu baahana qof kasta oo wadaniga ugu baahana in la badbaado dalkeena la badbaadiyo aad baad u mahadsantahay hooyo maanta waxaan ku doonayaa inaan aan ku maqalno ku dhageysano
shacab Soomaali badan baa ka maqlaya inta jiraan qeyrooday runta marka la sheegayo qofka wadaniyada soo arkay dana arka ayaa wax fahmi kara qofka marka wadankiisa oo yani dhibaato ka jirto wadanka uu tagana wuu fahmi karaa dareenka oo maanta ayaga fahmay ana waan dareemi karaa waxaan ku fasaxnay inaan hadasho aan kaa dhegeysan waxa ku jira calooshaada aan nala wadaagto ummadda Soomaaliyeed la caawiyo ay dhegeystaan ummadda Soomaaliyeed khayr Allah idin siiyo barnaamijka ay maqlaysaan hooyo Soomaaliyeed oo maanta oo soo aragtay saxarka iyo dhibaatada iyo dunida waxa ka jira caalamka marka la tago dalka Soomaaliya adigoo cashuur la qaado dadaa qabsada jabkooda ani Kenya marka maama Kenya ku jiray Kenya askarteeda aniga iyo gabdho badan gabdhahaas haday isqarana ayaga waay ana gabdho badan meesha way ugu fuulaa askarta Kenyaatiga ma fahamtay Yaman sidoo kale Sacuudiga sidoo kale meel aan gabar Soomaali lagu kufsan lagu xoogin male waa iska aamusan yihiin waayo dalkii oo dayacan iyo meel ay xuquuqooda ka raadsadaan male أنا واشيغا كينياتي way kufsadeen waa sheega kaliya miya xataa xerooyinka gabdhaha ka soo baxsanayeen ragga xataa markaas meesha jooga waxay qaban karin ma jirin waayo qorya lagu garaaca baadkiisa iyo buud iyo feera laga badinaa ma la hadli kara xerada Kenya cabaadka ka yeerjay habeenkii gabdhaha guryaha laga soo baxo oo mushkii waxaan ku leeyahay baakadana laga soo baxsan jiray fuuli jiray xataa askarta Kenyaatiga ma run la sheego waa burburna dalkeena inaan dhisnaa rabnaa af indhag isan meelana laga soo fuulin male runta fiican ضيعنا هيستو حارنا دلكنا إن عن محيط الإسلام تلياني أنا أنت كتجي كينيا أنا وحقول جديد كسي حجرا رستك النقضي والله قبل بدنا تلياني يقول سلينا ما أنت الموهايان أنا يلني كان مسارة يقول تلياني أنا جديد كوريجا دوارتنا أو هبيك الكنيسة أنت ما معك عنا مالها وريجا رفض بدنا صوم من دلك أمريكا كسب بعضه وأفي حاسة قال النوع عرب هذا قبل قمري بستان قبل وحقول قال راعين مليانة وكسر دوينا wax kasto nolosha ka soo horbacdo sida ku hadda wax u qarxinayno laaluushka loo siinaay oo dhuuntay anagana jirkeena aan beexsana aan waxaan kula jidka sax wallahi aan oo xijaabna qurux badan aan Kenya ka imaaday isli waxaan kula boorsidii darka aan wada qashinaan ku riday rasta surweel isaara meela ku wareey wallahi salaad iska daa ku rasta noqdo musqushu waa galaa waa ka soo baxay meela ku qabaysata male jidka soo kan seexay jirnay gabdhaha saddex gabdhood Talyaani raacin man Talyaani anigana waxaan kula yahay meesha iga tageen قال من راعي أنا إليه برساق ذبحية ميريجا أسكي وريجا وقال أبال ديش ومكان سوق حين يكون بدنا قدامك يروح صابر بري والله بلا استسوني ده أنا سيحنين سيح على الكرسي أو حنقول ماشي على أسكفر لي سنة أما أنت بس وريجا أو حنقول السجار كان ديل ودي حتى واسكو كل لينه واحد كسبلون حتى بركة توابرنه واحد أدافع سما هدي له وفور حتى والوفورايا وايد جدا بتهاجم تهيب ورواد ضيعنا دلكنا نابس أنا عمري أنا هوية ويا دارود هوية وكذا سلبا بس مركا مقلة عذرا يودعوا وما لها كلام ديك جيسنين وحان كلها هاي أو ناس حتى حقوقك وحان كلها هاي نظامك إيه كلا دمبين حتى لو ما أقوله سجاسني يكون تتسوق حياة إلا ما أنتم مدان دبتها إنه بركة هنا هو إلا حتى لعب دولار يقول ود أكل سريع إفراشني قاري عن لقى فدني روك عن لقى كواسي ورواد ضيعنا هاي ناقا maamada waa ka jaray maamada waxa ugu jarna waxay tahay wallahi billahi hadalku waa qeyro waxay ka sheekeynaysaa waa hadal wallahi jira